بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما أنت تاريخ واللبا بشي كوبات لبكن لباتني سدح وحن جوجنا مقالة مقدشو هوتيل كرمادة وحن سؤول نمد مناسبة كسابسن dadkii dhibaatada ay ka soo gaartay masiibadii ka dhacday Zobe 2 dadkaas ayaga ah arinta dhibaatada ay ku dhacday dadkii ehelkooda ahaa gabdhihii laga dhintay waalidkii wax dhalay walaalihii dadka dhintay la dhashay ayaan maanta meeshaan isugu nimid ujeedada la isugu yimid waxay ahayd xoogaa kaalmo ah oo lacag ah oo ay soo dhiibeen gabdho Soomaaliyeed oo muslimiin ah oo arinta ayada ka damqaday oo dadkaas walaalahooda ee dhibaatada gaartay inay wax ku kaalmeeyaan jecelaystay ayaan meeshaan insha Allah ku qaybinaynaa gabdhahaas waxa la yiraahdaa qolalka musaabaqaadka ila khayr cibaadu rahmaan qolka 100 gabdhahaas maamulkooda iyo macallimiintooda ayaa soo dhiibay maartay una soo dhiibay hay'adda Haro oo maartay inay wakiil kaga noqoto deeqdaas ay dadkaas ayaga gaarsiiyaan halka munaasabadaas aan soo nimid insha Allah hawshan bilaabayna gabdhii sadaqaadka soo dhiibay waxaan leenahay jazaakumullahu khayr ilaahay ha idin barakeeyo idinka iyo awlaadiina iyo maalkiina iyo aakhiradiina iyo adduunkiina Allah idin barakeeyo wixii khayr oo dalbaysan Allah idin siiyo wixii shar ah waad ka baqaysaan Allah idin kaga qabto dadkan waa dadkii ay sida gaarka u taabatay masiibada meeshaas ka dhacday dadkii dhintay Allah u naxariisto dadka dhaawacahna ilaahay caafimaad degdeg oo taam Allah siiyo runtii masiibo aad u culus oo maartay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan taabatay gaar ahaan reer Muqdisho ayay ahayd dadkaas naga dhintayna ama naga baxay ama naga dhaawacmayna ilaahay wixii dhintayna ha u naxariisto wixii noolna maartay oo xanuun dhaawacan Allah caafiyo barakallahu fiikum insha Allah haddana waxaan bilaabaynaa wixii aan ugu talagalnay munaasabadaas inaan qaybino bismillahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahad iska leh meeshan inuu kulansiiyay munaasabadan ayada ah oo ah munaasabad lagu caawinayo agoontii iyo dadkii laga dhintay caruurtoodii taariikhdu markay ahayd qaraxii labaad ee Zobe 29 Oktoobar munaasabadaas ayay ku saabsanayd ilaahay ayaa mahad iska leh mahad ilaahay kadib waxaan u mahad celinaynaa gabdhaha المسابقات إلى الخيرات معلمين توضا إمام الكوضا وحان كلو أمهل علينا قولك 114 إي 115 هو قولك عباد الرحمن حسوستي إيسو حسوستين أقوان تسعيدة إلهي وحان أغبرينا إنه كيالو في ميزان حسناتهم إن ميزان كو حسنات وبوحيو يا إلهي كبرينا إلهينا أو كحفظيو وحا أي بحيان وحكوين إنه إلهي سيو أيان إلهي أغبرينا رنتي وورالنمو ماشي قدام بيسي أو حسوستين أغوانتان أيغا أنه أغانتا إن لا عاويو qiimaha ay leedahay diinta islaamka agteeda ka leedahay in la caawiyo dadka agoonta ah oo dad kale ee musiibada ay ku dhacday waxaan kaloo ilaahay ka baryaynaa dadkii ku dhintay meeshaas ayaga ah inuu ilaahay jannadiisa uu geeyo jannadiina ilaahay uu ka waraabiyo sabir iyo iimaanna dhammaanteen uu naga siiyo waxaan kaloo ugu baaqaynaa gabdhahaas iyo dadka kale ee khayrka jecel qolkaasi kala duwan tabarucani iyo maaragtay deeqdeen laga soo gaarsiiyay inay xasuusnaadaan dadkan agoonta ah ee dhibaatadaasi ay ku dhacday
aad iyo aad bay hay-adda Maxaaro oo ayadana qayb ka qaadatay in ay soo gaarsiiso ammaanadii loo soo dhiibay ayadana aad bay ugu mahadsan tahay marka waxaan ma aqaanaa ilaahay ka baryaynaa sida meeshaan aan ugu kulnay inuu jannadiisa nagu kulansiiyo yani ilaahay weydiisanaynaa aad iyo aad baadna u mahadsan tihiin kelimadeedii intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waqtiga oo cariiriya dartiis gabadhan yartaa waxaa ku dhintay meesha hooyadeed iyo walaasheed waa arrin aad u naxdi badan ilaahay u naxariisto idin ilaahay u kaalmeeyo saas loola socdo codsi gaar ahaan u jeedinayna insha allah بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد إلهي سبحانه قادر هاي dadka muslimiinta oo dadkan u soo gargaaray oo baalka maxaa soo xasuustay ilaahay weyn subxaanahu qaadir waxa ilaahay uga bariyaa waxa wixii ay jecel yihiin in ilaahay uu siiyo in ilaahay oo baalka maxaa jannadii ka waraabiyo meesha ay ka soo bixiyeen meel wax baalka maxaa ahay wax ka badan in ilaahay uu geliyo aan ilaahay uga bariyaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبرينا إلهي إنه وحقار قوسية كذا ولا علينا سوق على إلهي سبحانه قادر كبد القار قفت الله سي أنتي كل ما تنحرسنا على سي أنتي كلام إلهي هو بدأ إن شاء الله ولا علينا نسوق البدن سكفي على ربنا إلهي سبحانه قادر غير قاضي وبدله. السلام عليكم. صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan u mahadnaqayaa dadkii masaakiinta meesha la soo ilaahay uu soo dhiibay oo sadaqaystay dadkan waxay sadaqaystay ayaan u mahadnaqayaa anagoo dadka masaakiinta ah dadkooda soo baa ku gaareenahay ajar iyo xasanad Allah ka siiyo اللهم صل على سيدنا محمد الله يا مهد أسقناتي قبل المسلمين وحنا سو غارسي ددك سو بكوغنا انا مصيبه ku gaartay waana ilaahay subhanahu wa ta'ala ajri xasanaad aan soo koobi karin Allah ka siiyo